Bismillahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaynu kusoo jirnay casharadeen aynu ku baraynay graphic design gaar ahaan barnaamijka Photoshopka. Khaasatan casharadeen waxaynu kusoo jirnay insha Allah soo bilownay casharadii aynu kaga hadlaynay toolska iyo qaabka loo isticmaalo. Marka casharkeenan maantana waxaan ku baran doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo toolska qaybihii inoo dhinaa oo qaybaha ugu muhiimsan kamid ah. Hadduu Ilaahay yiraahdo maanta waxaan arki doonaa crop toolka, frame toolka, eyedropper toolka, brush toolka qaybahaas aynu maanta aynu baran doonaa insha Allah. Marka toolkeena ugu horeeya maanta aan baran doono waa crop toolka. Crop tool saa ujeedid telefoonada xataa uu ku jira qof walba wuu garanayaa oo tusaale kale markaad isaga ku dhufato waxaa kuu soo bixi doona edgeskan ama geesaskan baa kuu soo bixi doona. Marka crop sidaad garanaysid waa jarid weeye inaad shaygaaga aad jarto haddaad rabtid cropka marka laba qaybood oo laba nooc oo kala duwan leh. Markaad wax jarayso mararka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad laga yaabo inaad sawirkaaga aad qayb ka jarto oo selectionskan shalay soo aragnay qaybahaas oo kale la mid yahay. Marka edgeskan kuu soo baxay waad kasoo yaryarayn kartaa dhinac walba waad qaban kartaa waad soo jiidi kartaa markaad u baahan tahay inaad wax jarto qaabka waad samayn kartaa inaad edgeska kolba dhinac aad kasoo jiido oo marka intii aad u baahnayd ay kuu soo hadhaad waxaa la yidhahdaa inter dhahid. Kadib marka saacadan oo kale intaas haddaan ka rabno waxaan oranaynaa laba qaab baan sameynaynaa halka had digta haddaan saarno iyo haddaan inter dhahno keyboardkeena labadaba way inoo jaranmaysaa. Marka hadaynu tig saarno hadda saacadda intii aynu jarnay baa inoo soo hadhi doonta. Marka aynamay tagin qaybtii kale oo haddaynu u baahnay inaanu ka dayno oo sideennii hore ku celino waxaynu sameynaynaa control plus z inaan dhahno oo sideennii hore ayay nagu soo celinaysaa. Marka qaabka kalood cropka u samayn karto waxaa weeye inaad mouskaaga intaad qabato inaad saa ugu jiido kolba intaad u baahantahay adigu inaad drag samaysid oo sidaa ugu soo jiidid isla intii aad samaysay buu markaas kuu jarayaa framekaaga intii kalena way kuu harsantaa. Marka haddaad tig saarta laakiin frameka intaa kale way kaa bixi doontaa oo marka halkaas intii baa inoo soo hadhi doontaa aynu jarnay. Marka toolkaas waxaa la yidhahdaa crop tool. Marka waxaa la isticmaalaa badanaa markii aad u baahan tahay inaad wax jarto. Mid kaloo perspective crop tool la yidhahdaa jirta oo dhanka aad markaad u baahan tahay shaygan shay jiif iyo kan oo kale iminka toos maahan. Marka shay jiif oo kale markaad rabto inaad jarto isaga kaasaad isticmaali doontaa. Tusaale marka hadda saacadan inteeda hore haddaynu rabno intaynu saa usoo jiidno marka qaybteen u baahanna hadda sidan maaha waxaan rabnaa saacadda jiifkeeda inaan sameyno. Marka waxaan samayn doonaa edgeskan yar markaan soo dhaweeyo si aad ila fahanto. Edgeskan yar baynu hadda intaynu qabanno baynu kolba dhinac u jeedinaa marka waa ujeedaa siduu inoogu jarmayo. Ka kale saas inooma sameynayo afar gees weeye kani laakiin waa perspective waa jiif baad u samayn kartaa waxyaabaha jiifka oo kale. Hadda marka saacaddeena haddaynu intaas uga baahno hadda waynu inter dhahno intii saacadda oo jiifka ay noo soo haraysa laakiin hadda qaabkuna inoo tusi doonaa. Marka kaasna waxaa la yidhahdaa perspective crop tool. Isagana waxaa loo isticmaalaa waan dhahnay waxyaabaha jiifka iyo waxaas oo kale markaad ku jaraysa ayaa loo adeegsadaa. Toolka nagu xigaan arki doono maanta waa frame tool. Frame toolkan waxaa weeye wuxuu kuu samayn doonaa isagoo tusaale kale si aan u fahanno laptopkan aynu soo qaadano halkan waxaynu ku samaysanaynaa frame. Laptopka ayaynu frame ka samaysanaynaa qaybtan. Markaynu framekaas u samaysano wuxuu inoo samayn doonaa meeshan laptopka waxa inaynu dhex gelin oo kale tusaale kale camal hadaynu samayno inkan baan dhex gelinaynaa. Marka frame toolkuna isaguna qaabkaas oo kale inoogu samaynayaa frame baynu samaysanaynaa kadib wax baynu dhex gashanaynaa marka isaguna qaabkaas oo kale u shaqeeyaa frame toolku. Waxaan sidoo kale arkaynaa eyedropper. Eyedropper toolkani waxaa weeye isagu waa midka shayga tusaale kale hadda imika haddaan u baahdo colorkaas uu meesha leh inaan soo qaato halkaasaan ku dhufan doonaa. Marka colorkii inuu ii doormayo in kale si aan u fahmo halkan uu ii tegi doonaa meeshan front colorkayga halka codekii colorka uu lahaa halkan baan ka arki doonaa haddaan u baahno marka inaan dib u isticmaalno. Marka waa kaa ujeedaa wuxuu inoo qaatay colorkeenii aynu markii soo qaadanay oo eyedropperka aan kusoo qaadanay. Eyedropperkana badanka wuxuu aad u muhiim yahay markii aad shay samaynayso oo design gareyn rabto colorskiisa haddaad u baahato inaad shay kale meel kasoo qaato haddii tusaale kale iminka laptopkaas colorkiisa aan u baahannahay waxaan sameynaynaa si aan usoo qaadano intaynu halkaa ku dhufanno eyedropperka baynu tegaynaa automatically wuu inoo dooraa. Haddaynu madow rabno halkaas wuu inoo dooraa haddaynu halkan rabno wuu inoo doorayaa. Marka hadaynu kan oo kale soo furno tusaale meeshan baan u baahannahay colorkeeda halkaas wuu inoo soo qabsanayaa. Garanta cad baan u baahannahay qaybtiisan baan u baahannahay marka shay walba aan soo qabsano wuu inoo soo qabsanaya. Marka eyedropperka saasaa loo isticmaalaa isaguna oo color picker weeye color kaad u baahan tahay ayaad ku dooranaysaa. Marka haddii aad color aad rabto uu jiro tusaale kale haddaynu kan soo furno tan oo kale haddaynu soo furno colorradeena aynu ka helno oo tusaale kale halka colorkaas aynu u baahannahay halkaas wuu inoogu soo doormayaa ama kan aynu rabnaa halkaas isagoo sidii laftigeeda shimbirta colorkeedaas aynu rabnaa halkaas wuu inoogu soo qabanaya. Marka eyedropperku qaabkaas wuu u shaqeeyaa isaguna. Waxaa inoogu xiga toolkeena kale aan ku xigaynaa waxaa weeye waa spot healing brush toolkan. Barnaamijkan wuxuu aad ugu wanaagsan yahay
sawirada iyo in waxaas lagu edit gareeyo. Marka tusaale kale finanka iyo qof kale haddii aad u baahan tahay inaad ka saarto ama qofka wejigiisa aad saafi ka dhigto, waxaad isticmaali doontaa spot healing brush toolkan. Tusaale haddaan soo doorno oo meeshan iminka aad ujeeda halkan oo kale, hadaynu halkaas aynu ku dhufano aynu saa u taabsiino, waa ujeedaa meeshii waxay noqonaysaa meel siman. Halkan oo kale godka haddaynu saas dhahno wuu ka baxaysaa godkii. Halkan oo kale madow yar hadduu ku jiro isagana halkaas wuu ka bixi doonaa madowgii. Marka isagana finanka iyo waxaas oo kale ayaa loo adeegsadaa, isaga iyo kan kale laftigiisa labadaba. Kan isaga waxaad samayn doontaa meel intaad doorato si aad u fahanto. Halkaas haddaynu doorano oo kadib aynu meel kale aadno oo halkan ku masaxno, waxaa inoo soo bixi doonaa sawirkii. Marka meeshaas ayaynu ku sawiri karnaa sawir kale meesha macnaha. Marka meel baad kamid ah dooranaysaa, meel kaloo bannaan aad la aadi, kadib haddaad ku samayso sawirkii baa kuu soo bixi doonaa, sawiri kartaa. Spot healing brush toolka isagana qaabkaas ayaa loo adeegsadaa. Marka waxay noogu xigaan arki doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo brush toolka oo isagu marka qaybo kala duwan brush toolka. Halkan waxaa ku jira mar walba shalay anagii soo sheegnay, haddii toolka oo fallaar yar oo noocaas oo kale uu leeyahay, waxay ka dhigan tahay qaybo kale oo tools baa ku hoos jira. Marka si aad kuwa aad usoo muujiso, waxaad samayn doontaa right click oo dhanka mousekaaga ayaad samayn doontaa, kadib way kusoo bixi doonaan kuwa ku jira. Marka brush toolka haddaynu soo qaadano oo brush toolkii caadiga ahayd garanaysa sida aad fahanto, tusaale kale kan waynu soo qaadanaa. Marka isaga laftigiisa kala duwan. Hadda tusaale kanii dooran waa noocan oo kale, kalarkiisa hadda qaabkan uu yahay. Haddii aad u baahato inaad ka beddesho, halkan baad tegi doontaa meeshaas front ground colorka, kadib halkan baad ka beddeli doontaa kalarka aad u baahato aad ka dhigan doontaa. Marka brushka typekiisa ama noociisa halkan noocan oo kale haddaad u baahnayn, halkaasaad tegi doontaa, qaybtaasaad ka beddeli doontaa mid walba midkaad u baahan tahay. Kadib haddaynu kan darrano marka waa ujeedaa wana saas inoo noqonaya. Haddaynu ku laabano oo mid kaloo noocan yar shucaac oo blur ku jiro aynu soo qaadano, isagana waa ujeedaa. Marka brush toolka isagana qaabkaas waa burushkii caadiga ah oo isticmaali jireen oo kale. Pencilka oo kale isaguna dee waxaad isticmaali doontaa badanka. Tusaale haddaan halkan aan ka dhigno buluug aan ka dhigno, haddaynu halkan buluug ka dhigno oo kale, tusaale halkan aan buluug ka dhigno oo kale, qalin waxaan u baahanaa hadda saxiix oo kale. Tusaale haddaan rabno inaan sameyno, waxaan isticmaali doonaa pencilkaas oo aan saxiixa ku samayno. Marka qaabkaas isagana loo isticmaalaa pencil toolka oo qalinka ah. Waxay noogu xiga toolka noogu xiga maanta arki doona hadduu Ilaahay yiraahdo, waxaa waaye waa eraser toolka. Eraserkan marka si aan u fahanay isaga sawirkan baan u baahanahay, backgroundkiisa aad buu muhiim u yahay. Eraser toolka marka aad isticmaalaysid tusaale kale burush camal oo kale weeye, saasuu kaaga saaraya haddii aad u baahato. Marka sawirka ma rabno hadda inaan ka tirno, background clear rabnaa. Marka kaasoo kale si aan u sameyno, waxaynu halkaa isticmaali doonaa. Kani waa saas waad u isticmaali kartaa isaga eraserka oo tirtiraha camal oo kale weeye. Laakiin backgroundka dambe haddaad u baahato inaad iska tirto, waxaad adeegsan doontaa kan laftigiisa waad adeegsan kartaa oo isagana saas unbuu tirayaa, backgroundka unbuu tirayaa. Laakiin waxaa ka ugu muhiimsan saddexdan waxaa waaye ka ugu muhiimsan saddexdooda marka waa magic eraser tool. Isaga waxaad samayn doontaa hal mar unbaa taaban, click unbaad siin, kadib wuu kaa jiri doonaa isagu. Click unbaa siin, click si fiican buu kaaga jiri doonaa marka isagu backgroundka dhanba. Marka waa ujeedaa isagu hadda wax walba uu kaa jiray oo ku jira backgroundka. Sawirkaagii hadda clear meeshaad rabto ayaad geysan doontaa. Haddaan xaggan geyno, halkan soo dhigno, kii hadda markii hore inoo yaalo oo kale, laakiin hadda background ma wato kani. Marka ujeedaa meeshaan dhigna hadda, meeshaan dhigna buu kasoo muuqan doonaa, sideedu uga soo muuqan doonaa backgroundki maadaama ka jarnay. Marka toolkaas isagana eraserska oo qaabka tirtirayaashaas, qaabkaas iyagana loo isticmaalaa. Ka ugu wanaagsan badanka waa magic eraser toolkaas, qaabkaas isaga kaas aad loo isticmaalaa. Marka toolkii noogu xigayay waa blur tool. Toolka marka isaga waxaad adeegsan doontaa tusaale haddii ninka qofkan ishiisan kale haddaynu sii ka dhigno blur saarana shucaac, waa ujeedaa ishii ma muuqato, kala unbaa muuqata. Aan soo yar dhaweyno wax yar, waa ujeedaa ishiisii waxaan ku furnay shucaac, ta kale laakiin caadi bay u muuqataa. Kan oo kale haddaynu samayno oon blur ku furno wejigiisa dhanba, hadda waxoogaa waa ujeedaa. Marka qaybahaas ayaynu kusoo koobaynaa cashirkeeni maanta aynu ku baranaynaa toolska qaybahaas. Wax yar baa inooga dhiman marka toolska qaybihii kale aad u muhiimka la isticmaali jiray. Wixii marka aan aad u muhiim ahayn oo badanka la isticmaalin marka waynu iska dhaafaynaa. Marka waqti kusii bixin mayno. Qaybaha marka aadka loo isticmaalayno marka aad ugu sii dadaali doonno hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka cashirkeeni marka halkaas aynu ku ekeenaynaa qaybaha ku baranaynay. Subxaanaka Allahumma bixamdika, ashhadu an laa ilaaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilayk.